waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed horta guud ahaan u tacsiyeeyo intii ku dhimatay intii ku dhaawacantay intii ku aabbo weyday intii ku hooyo weydayba waa xanuun aan xasuusan doono marka la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed 65 sano dawladnimadeeda dhibaatooyinka la xasuusto waxa kamid ah gumaysi waxaan ku xasuusanaa wax la yiraahdo keli asayle marka la yiraahdo qawaarijna waxaan ku xasuusan doonaa Soobe labada taariikhood insha Allah waxaan oran karnaa ardayda Soomaaliyeed jiil walba oo u dhigi doonaa dibkii ay geysteenna waa la xasuusan doonaa laakiin waxaan u mahad celinaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed haday haween ahaan laayeen haday dhalinyarada odayaal cid walba siday uga falceliyeen markay wixii dhaceen ma ana is dhigan bulshadana ma is dhiganin way soo kabatay caawa Soobe waa tana ummadda Soomaaliyeed nabad ay ku maraysaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ayaa goob kasta taagan oo ammaanka sugay waxaan oran karnaa markaan isba bardhigno 8 sano ay ka soo wareegatay dhacdadan ummadda Soomaaliyeed maxay isbedel samaysay haddii gumaystihii dalka laga saaray 60kii oo keli asay lagu xasuusto qawaarijna ummadda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ka sifaysay waxaana lagu xasuustaa Soobe xasuusta keli asay ay ku haysta manhajka Soomaaliyeed ee bulshada Soomaaliyeed iyo odayaasha ay xasuusan doonaan anaguna waxaan maanka ku hayn doonaa Soobe ma la hilmaami doono laakiin waa meeri doonaa waxaan ku meeraynaa nabad dhiigi halkan ku daatay wuxuu saameyn doonaa guud ahaan Soomaali ummadda Soomaaliyeed qulubteeda isku furmi doonta nabad hadda aan haysano 100% oo ciidanka ammaanka naftooda horiyaasha u taagan yihiin nabad ka adag ka sal adag ka fiican aan gaari doonaa